waxay keeni kartaa dhibaatooyin fara badan, waxay keeni kartaa isafgaranwaa fara badan, waxay keeni kartaa in waxyaabo fara badan oo la qaban lahaa gobol ahaan la qaban kari lahaa in meesha ay ka baxaan baa dhici karta. taasna waxaan ugu baaqaynaa saaxiibadeeda gobolka ee ku lug leh naafada waxaanu ka codsanaynaa in ay nagala soo qayb galaan barnaamijyada dambe ee qaban doono si aan uga wada hadalno ujeedada gobolkan ay ka leeyahay dadka naafada ah. imka dadka arkaysan waa naafo warkaan u sheegayno sida ay annagu u sheegayno imka iyagu u maqlaysan bayaguna u maqlayaan kaindhahadeena dee dhawow ka maqlayaa laakiin run ahaantiina haddana waxaan isku dayaynaa bal inaanu midayno kii cagaha lahaa kii dhagaha lahaa kii indhaha lahaa kii gacanta lahaa intaba inaanu midayno oonu ka dhigno dad wax ku oola waxna qabsan karaa ujeeddadii laga qaba inay noqoto mid beena oo annaguna aanu dhabayno rumayno sida loo doonayo qofka aadamiga ay markii horeba ka dhacsanaa noloshu inuu maanta ka mid yahay dad nolosha ku jira dad ummadda wax la qaybsan karaa dad maanta baarlamaanka iyo dowladda iyo nidaamkeedaba maanta wax ka fahmi karaa waxna ka qabsan karaa waxaase maanta guul loo ah iyadoo baarlamaanka Soomaaliland la isku raacay barnaamijkiisii in dadka naafada ay ka mid noqdaan ururada waddanka ka jira dowladda ka mid noqdaan baarlamaanka ka mid noqdaan wasiiradana ka mid noqdaan taasina waa guul weyn oo naga loo tallaarno ahaantii markaan eegno waan muslinahay waad ku dhaaran kartaan waad ku hirgelin kartaan isdiilo fara badanna na tusaysa inaanu waxyaabo fara badan markaas soo qabano marka dabcan bishii gaarado joogay kale iga dambeeya waxaanu daleelahay guul wanaagsan dadka naafada waxaanu rajaynaynaa horumar waxaanu rajaynaynaa barwaaqo waxaanu rajaynaynaa kasbasho wanaagsan oo kaga baxayo noloshii hore uu maanta ku bedelayo nolol cusub oo jiilkan ah oo la qabsanayo horumarka ka jira gobolka iyo deegaanka walaal baadsantii wassalaamu calaykum waraxmatullaah xubin ka tirsan kuwa dadka naafada kuna hadlaysa magaca naafada iyo maalinta nagaasha disability day ee ku beegan maanta oo Amina Maxamed Bahadi yaata hidiya dhaqanka aad u yaqaana haday tahay sayid haday tahay rayad haday tahay hidiya dhaqankii saddexdii xataa haday tahay aad bay u ciyaaraan oo u ciyaarsiinaa ardada dhigalayaasha markaasi waxaan ku soo dhaweynayaa baado dadkii laga hadlaa oo sayidii ciyaaraya iyo dadkii laga hadlay oo iyagu rol ciyaaraya oo macallin fikriyay oo la ciyaaraya gabadha iyo laba arday oo kale ayuu iyagu ka dhiga qaba ayaa iyaguna sayidii ciyaar doona wada ku soo dhawaada waxay u badan yihiin qaybta naafada u badan yihiin laakiin taa waxaan rajaynayaa wadaagta Soomaaliyeed nasiib darro waxaad moodaa in waxyaabo fara badan iska bedeleen nasiib darro waxaad moodaa in dhaqdhaqaaqa ka jira gobolka iyo marka loo eego gobollada kale in farqi weyn u dhexeeyo taasoo moodo Soomaalida hadda jira waxay tiraa tuman garabkaaga ku jiro ama gacalkaaga ku tumo macnaha waxaad moodaa in waxyaabo fara badan ay ka maqan yihiin gobolka loona baahan yahay gobol ahaan inuu iska xil saaro وبعودالتا ولا قيبسن لها runtii kaalintiisa uu ka qaato annagu maanta halkan waxaan u soo galnay annagu xusayna sanad guurada dadka naafada ay ku goobeen ee adduunka oo dhan ka dhaxaysa gaar ahaan Soomaaliland marka loo eego annaguna waxaan doonaynaa inaan doorkayga ka qaadano muujinana qaabka aan u wajahayno habaynta ururinta waxbaridda iyo horumarinta nolosha qofkii markiisii horeba ka harsan nolosha aadamiga waa dadka naafadu